السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ليد الهانتين با kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kusoo qaadan doono horumaradii kala duwanaa ee gobolka ka hirgeliyay barasaabkii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire iminkana ah wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland. hogaamiyuhu waxa uu muuqdaa marka tafta hooyo lagu jiro dadkuna uu kala dhashaa dhisnaanta qofnimo iyo dhisidda qarankaba bulsho kastaana iyada ayaa qiimaysa haliyeyga hanka leh qabo ayuu ahaa balse hadda waa Qabyo Tire. taariikhdu markii ay ahayd 4tii bishii koobaad ee sanadkii tagay 2016 maalintuna ahayd maalin khamiisa 10kii aroornimo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taasi oo lagaga hortagay degmada Sheekh oo ka tirsan gobolka Saaxil. Amintaasi bulshada reer Burco waxay u heelanayeen inay helaan mas'uul gobolka ku sameeyay isbedel muuqda oo lahana qaado horumarka kala duwan ee ka socda guud ahaan dalka. muddadii uu xilka barasaabnimo hayay waxa uu ku talaabsaday horumar ballaaran oo ay aad ugu farxeen bulshada gobolka Togdheer iyaguna bulshada reer Togdheer ku tilmaamay jawharad ay nusqarn heshay gobolka Togdheer. Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire waxa uu si toos ah u guda galay hawl maalmeedkiisii shaqo waxaana uu soo celiyay haykalkii shaqo hanaankii iyo hididiiladii bulshada reer Burco isagoo isla marhaantaasina wax ka bedelay shaqooyinka laamaha dawladeed isagoona hirgeliyay inuu ku guuleysto in la bilaabo goobtii lagaga dhawaaqay go'aan-isutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu sidoo kale ku guuleystay inuu miisaaniyadda dalka ku daro in la bineeyo dhismo cusub oo ah aqalka looga arrimiyo gobolka Togdheer isagoona uu dhagax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. meeshii iyo goobtii iyo gurigii lagaga dhawaaqay Soomaaliland oo aynu renovation baynu ku sameynaa dib u habayn isbeelaynu ku kordhin doonaa si caruurteena iyo jiilka dambe inooga faa'iidaan. madaxweyne shirkadan Najax Construction ay waxaanu tartan gelinay kalideed maanu siinay 4 shirkadood oo magaalada ah kadib tartankii aanu gelinay guddi baan u saarnay guddidii waxay helay shirkadan Najax Construction baa bidkii helay sababtaasa Najax ay u qaadatay iyagaana dhisaya waliba si voluntary imika wixii aanu kala saxeexanay inay waxay diyaar u yihiin inay sii wadaan oo dhisaan sida ugu markaa ninkaas waa kasbaday gabayga sidanu ina leeyahay hadii la wuxuu qisay hadii aan murtida qaxar markuu geynin ama si aan kalgacal kugu qasbayn qariyo miisaan la qodax laga ma waayay dalab qaalla iyo boogana gabayga quuduma tirsho iyo qada ku raacday iyo goortu wax weyn qabanayo ayaan qodob taabta caawna midaanu la qastay qaasan gobolkeenna oo qabiya barasaabka ku eeg quruxna loo daayay balanqubo sawaariikhda qaab ku shingoay afartaas qalqaalshi ee waxaan ku qurxiyo raacshi qaasin iyo salaan sidii qowdhan iyo yowle ama qaababkii faaraxno qaar u oranayay qoracsiyo sidii xaajiga qaadarkay baray waxba sayaan qumbulada yar u dhigan idan qanaysiina waxba yaan qasnada ku furfurin qolal uu kaydiyay waxba yaan badweyn quusin iyo qowyo maayad ee qarkan dhowba aan kaaga daro midaan quuray Qabyo Tire inuu yahay ninkani qanigu noo keenay qalad ku hadli maayo runtii qira dadweynuhu iyo waa wiil qadarin iyo mulgale qowl cad iyo muuqe waa niman qiyaamo iyo hoos qarashu boobeynay ruux qaraabo meesha ugu baxay qoon ma maamulay waa niman qabyaalada ku jirin qoysasiyo reer qawaaniinta waa niman sharciga ka qardajeexayna waa niman qaraab loo lulo iyo qalad la jiirsiina qacdo horeba aadmiga barbaad qadafka diidaayeen hadafka qaynuunka waad ugu qushuucdaayay goortan qulubtiya la shiray qaanadaha beerka amaan eegay qaban qaabadiyo qaydka uu dhigayo goortan qudbadihiisa iyo hadalka qiimeeyay madaxweyne waa nimo qalmiye qaran hogaankii qufulkii xidhnaa buu furay soo qodoo helay ka dawooda qala iyo burcana qoonsigii hore qaadir haw gargaaray runtii qaadninkani koob afartaana qalqaalay ee waxaan ku qurxiyo raacsha qaasin iyo salaan iyo sidii qowdhan iyo yowle ama qaababkii faaraxno qaar uu odhanayay qoracsiyo sidii xaajigii qaadirkay baray waxba siiyaan qubuladeer ay u dhigan
idin qaniinsiina waxba yaan qasnada kuu furfurin qolal kaydiyaale waxba yaan badweyn quusin iyo qawiyo maayadina qarka dhowba aan kaaga daro midaanad quuri qasab midhaha uma daydayo qari iyo buurjil qolana cid uma maamuso quri iyo saaxiiba qadar iyo baweeyay aniga qayb rabaaniye qalooc iyo waxaan sama arko ayaan quni tilmaamayo goortu mid qoran oo naxwo leh qanigu ii dhiiba ayaan ka qalbiga lulaya iyo qeyra tiriya cid kastoon qurqurinay ribo iyo wuxuu ku qaamooba ama qaadan laaluush iyo qurus yaroo liita qarba libinta xaasida dadka iyo shayga qiimalay qarin maayo xaajada wixii mar qushuuc cali waxaan qeyl lahayn iyo anoon mala qarqoraynin taariikhdu guul ha u qorto iyo qaalinimadaas qodsadiisu nimay dheer tahay oo quurayaan ahay qarni baan adduunka uga dhigay qayb tusaale ah isaga iyo qeyrkii intii qabasho doonaysa ama qaabilaad horumar iyo hadaf u qaynshaaran ilaahay qasaariya ma bada qoomamiya cil wadani maxamed ibraahim aadan qabyo tire waxa uu markiiba bilaabay kulamo uu la qaatay isduwayaasha iyo mas'uuliyiinta laamaha dawladda gobolka si uu u dardargeliyo howlaha shaqo ee ka socda gobolka وشركة سدوية شيء ويقول برا وحنا يلا مالنت خميسة يجا عنا قلنا وزير النوع ما أنت وحياة وقوم يمسك كل سؤال قاعدنا حكم ذا إن أنا ويكن صوص سعودة بشلي حالات كذا ما أنت حتى إن الله شكرين دونه maalintii dabdamiska gobolka Togdheer ee badashada lagu daro koob iyo 30 baan u leenahay sagaal baan afar waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiinta iyo ardayda dadaashay iyo waliba macallimiinta firfircoon in badan baan isku celceliyay afkaygana ka haysan top 10 free scholarship baan u helayaa hadda top 10 ka hadha sanadka ismaan lahayn laakiin 9 bay noqonayaan waxa salaada kulli 8 iyo 5 ismaan lahayn laakiin 9 iyo 20 kii caawa waxaan ugu bishaareynayaa 9 iyo 20 kiiba free scholarship baan u hayaa ku bishaareysta barasaabkii hore ee gobolka Togdheer waxa uu sidoo kale hirgeliyay inuu dhagax dhigo mashaariic horumarineed oo uu isagu horkacayay maxamed ibraahim aadan qabyo tire barasaabkii hore ee gobolka Togdheer waxa lagu xasuustaa inuu kaalin mugle ka qaatay abaaraha adag ee ku dhuftay gobolada bariga Soomaaliland isagoo oo sidoo kale u kurgalay in ka badan 5 gobol isla markaana ay soo food saartay xaalad abaareed oo adag dawlad la soo booqata oo sidiina noogu timaada wallahi oo maanta idin koonayso wallahi ma abaar baasan baa jirta annaguna ka gobol ahaan abaarta waa lagu kala badan yahay laakiin abaar way ka jirtaa gobolka oo dhan jawaabta waan idin soo diraynaa insha Allah wixii aan idin heli karno oo raashinku ugu horeeyo waa idin soo diraynaa barasaabkii hore ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu ku guuleystay xal u helidda kiisas in muddo soo jiitamayay oo ay ka dhasheen khilaafyo kala duwan waana kuwan ee dib u xasuuso kiisaskii uu ku guuleystay alxamdulillah horta mar haddii ina keenay hor fadhiyo reerka acyaantii reerkuna ay hor fadhido ilaahay waa nagu guuleeyay dadkeenna mushkiladda ina kala haysata waxa weeye aanooyinka iyo waxa la isku dilay Soomaaliya ummadda ka reebtay Soomaaliya waxa ka reebay ummadda waliba inaga deegaanha Somaliland inaynu ka kornaan mooday waxyaabaha noocaas oo kala in sida maanta wax looga qabtay oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayn wax kastoo dhacana sida hadii wax looga qabto alxamdulillah ugu mahadnaq aad iyo aad baan ugu mahadnaq aad iyo aad baan haddana dadaalka aad samayseen maamul ahaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayn waa noo farxad ciidamada Somaliland ee soo gaaray degmada mas'uuliyiinta waata dhammaantooda aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin shaqadiinina waa gudateen annaga gurmadkayagu iyo imaatinkayagu waa inaanu moral idinka idin dhisnahay inaanu niyadda idin dhisno inaanu nabadda sugno xuduudaha Somaliland ee gobolkan Togdheer dadkii sida arxan darrada ugu dhintay jaamacad Dubai ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay naxariista janno ka waraabiyo innagana samiriya iimaan hay naga siiyo barasaabkii hore ee gobolka Togdheer waxa uu ahaa madaalo ka adag shaqadiisa waxaana uu safar kala duwan oo qaatay guura iyo galab carrow ku tagay deegaanada gobolada bariga oo ay ku habsatay abaaro baahsan isla markaana la duruuf qaybsaday iyo baalaan labaduba way jiraan waxa si xoog badan wax biyo la'aan leeyahay waxay ku liitaan waxa weey riig male baraagana wuxuu ma gelin waa la garanayaa halka waxa ka dhiman waa la garanayaa gudoomiye soo dhawow xaaladda degmada nala ogow xaaladda ceelasha nala ogow isagoo mar hore qabyo tiray ceelka aan taaganahay barasaabka iyo guddida abaaruhu iyagoo iska kaashanaya
bay qabyo tireen si wacan buu loo cabayaa ka kale ceelka labaadna haddii la ahayd ma kormeerku uu marayaa imika wixii laga bilaabana kolley gobolkan iyo degmadanba cagtu waa ku badanaysa waa la iman doonaa madaxina way naga dambaysaa sahan baan si aan noo soo dhawaysanaysa kasii badanna waxaanu ka filaynaa inaad dadka u soo dhawaysa waa keenaynaa insha allah biidni illah riigaana waa ballan qaadaynaa inaan ku soo kaxayno ka ugu muhiimsan waa riiga waa ka dabadgelaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waan idin guddoonsiin doonaa guddida abaaraha guddoomiyahooda ayaan 40 booyadood ayaan guddoonsiin doonaa guddoomiyaha gobolka togdheer mudane qabyo tire waxaan ka guddoonnay booyadahaas 40 booyadooda barasaabkii hore ee gobolka togdheer maxamed ibraahim aadan qabyo tire isaga oo halgan waqti iyo dadaal habeen iyo maalin ah ugu jira samata bixinta dadka ay abaaruhu ku habsadeen ayaa waxaa loo dalacsiiyey wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland taasi oo ay bulshada reer Burco ku tilmaameen isku shaandhayntaasi inay ahayd mid murugo badan oo saameysay qulubta dadka gobolka togdheer aad iyo aad aan uga xunnahay barasaabkii koowaad ee Burco dhaqaajiyay barasaab dhaqaajiya Burco waa kii koowaad kii xalayta dhaqaajiyay Burco madaxweyne xalay buu bedelay dalkani wuxuu u baahan yahay miyir iyo maskax lagaga shaqeeyo kii ka adag madaxweynuhu muddadiisii uu ku soo bartay adeer qof wuxuu khalsal xilkii uu qaban karayay buu dhiibay waxaan si adag ugu taanayeenay barasaabkayga gobolka togdheer Bastar Qabyo Tire imikana qorsheyntii baad noqotay bulshada reer Burco ayaa si niyad samiya waxa ay u sii qabteen munaasabado sagootineed iyagoona shahaadooyin iyo abaalmarino fara badan ay ku sii maamuuseen waa tusaale weyn tilmaan dhaxalgalo waxa ay tusteen shalay inaan anna tusmada cadaalad toosan iyo tiirdhaxaad noqdo mideeyo togdheer waan ku taamayaa ballan weetaas ballan qaadayaa gobolka togdheer insha allah hadduu ilaahay ila qabto idinkuna iskaga garab taagtaan muran muu galeen wuxuu ahaan lahaa caasimadda qarankan buu ahaan lahaa waanu ahaan jiray magaalo madaxdanna way ahaan jirtay caasimaddii ugu horraysay Somaliland Protectorate markii Ingiriiskii